بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back. سو دوادا مركله إن عشر كمانتا وليسن 10 عشر كتوبنات ليسن 10 عشر كتوبنات مانتا وحكو سابسن يهي إن استعمالك إريغا have to وحانو صوبراني إريغا have معنيهيسا oo ahayd haysasho marka lagu daro prepositionka ama meeleeyaha to macnihiisa wuu isbedelayaa. have to marka la yidhaahdo waxa ay noqonaysaa waajib. have to waa waajib. ereygan use hadduu kugu cusub yahay waa isticmaal. use waa isticmaal. of waa lahaansho. marka use of have to sida loo isticmaalo have to. in general guud ahaan have to macnaheeda expresses waxay sharxaysaa obligation waajibaad ama waajib noqosho. in general guud ahaan have to in general have to expresses obligation. guud ahaan have to waxa ay sharxaysaa waajib. when you use have to marka aad isticmaasho have to you are expressing waxa aad sharxaysaa that an external power and awood adiga cadkaada ka baxsan is obligating ayaa kugu waajibaynayso ama waajib kaaga dhigaysa or forcing you ama kugu qasbaysa to act inaad ficil samayso ama inaad wax samayso. for example tusaale ahaan iskuulka mararka qaarkood sharciye ayay soo rogi karaan sida haddii la yidhaahdo ardayda dhar isu eg ha soo xidhaano. government dowladda oo kale waxay sharciyo ayay sameeyaan oo dadka ay ku waajibiyaan. marka ereyga have to markaas ayaa la isticmaalayaa marka awood adiga kaa baxsan ama aadan xukumin ay markaasi wax kugu waajibiso ama wax samee ku tidhaahdo markaas have to waa ku qasbanaan. have to waan ku qasbanahay. tusaale ahaan in Somalia waddanka Soomaaliya most school children caruurta iskuulka dhigata intooda badan have to waxa ay ku qasban yihiin wear inay xidhaan uniform dhar isu eg. in Somalia waddanka Soomaaliya most school children caruurta iskuulka dhigata intooda badan have to waxay ku qasban yihiin ama waxa waajib ku ah wear inay xidhaan uniform dhar isu eg. in some countries waddamada qaarkood you have to waxa aad ku qasban tahay to drive in aad gaadhiga ku wado on the right side dhinaca midig of the street ee jidka. waddamada qaarkood waxaad ku qasban tahay ama waxa waajib ah gaadhiga in aad dhinaca midig ku wado. in some countries waddamada qaarkood you have to drive waxaa lagaa doonayaa ama waxaad ku qasban tahay in aad ku wado gaadhiga on the right side dhinaca midig of the street ee jidka. Tom qofka la yidhaahdo Tom has to wuxuu ku qasban yahay wear inuu xidho a tie garabaati at work shaqada marka uu joogo. Tom has to wear a tie at work. Tom waxa uu ku qasban yahay inuu garabaati xidho marka uu shaqada joogo. Tom has to wear a tie at work. ereygan must isagana waa waajib ahaansho. waa ku qasbanaan ama waajib ahaansho. laakiin have to iyo musti wax yar bay ku kala duwan yihiin. ereyga must waajib ahaansho ama ku qasbanaan. in general guud ahaan must ereygaasi must
expresses wuxa uu sharxayaa ama wuxuu qeexayaa personal obligation wax shakhsiga isaga uu isku waajibiyey ama isaga uu isku qasbayo or ama what the speaker waxa uu qofka hadlayo think u malaynayo is necessary in loo baahan yahay ama ay muhiim tahay in general guud ahaan must ereyga must expresses waxa uu qeexayaa ama wuxuu sharxayaa personal obligation wax qofka isaga uu isku waajibiyey or ama what the speaker wax qofka hadlaya think uu u malaynayo is necessary in loo baahan yahay tusaale ahaan you must visit us you adiga must waxaad ku qasban tahay ama kugu waajib ah visit us inaadna soo booqato annaga visit waa booqasho us waa annaga he must work harder he isaga must waxa uu ku qasban yahay work in uu u shaqeeyo harder si ka adag sida hadda uu u shaqaynayo he must work harder waa in uu dadaal dheeraada muujiya oo sida uu hadda u shaqaynayo si ka adag waa inuu u shaqeeyaa ama ka duwan he must stop smoking waxa uu ku qasban yahay in uu joojiyo qiiq ama sigaar dhuuqista he isaga must waxa uu ku qasban yahay stop inuu joojiyo smoking and sigaar dhuuqista in each of the above examples mid kasta oo ka mida tusaalayaashaasi aanu kor ku soo sheegnay the obligation waajib noqoshada ama waajib ahaanshaha is the opinion waa fikirka of the person qofka speaking hadlaya in each of the above examples mid kasta oo ka mida tusaalayaasha aanu kor ku soo sheegnay the obligation waajib ahaanshaha is the opinion waa fikirka of the person qofka speaking hadlaya question form marka su'aal ahaan laga dhigayo ama su'aal loo bedelayo have to ereygan have to marka su'aal laga dhigayo oo su'aal ahaan loo weydiinayo do you have to go to school today maanta ma waxaad ku qasban tahay inaad iskuul aado do you adiga have to miyaad ku qasban tahay go inaad aado to school iskuulka today maanta does this report have to be finished today warbixintani ma waxaa lagu qasban yahay maanta in la dhammeeyo does this report warbixintani report waa warbixin does this report warbixintani have to be finished today maanta in la dhammaystiro miyaa lagu qasban yahay ama qasab miyaa warbixinta maanta in la dhammaystiro does this report have to be finished today finish waa dhammayn ama dhammaystirid this waa kan report waa warbixin have to waa ku qasbanaan ama waajib ahaansho today waa maanta does she have to start her new job tomorrow does she iyada miyay have to ku qasban tahay start inay bilowdo her new job shaqadeeda cusub tomorrow berrito does she iyada miyay have to ku qasban tahay start inay bilowdo her new job shaqadeeda cusub tomorrow berrito does she have to start her new job tomorrow negative form marka laga dhigayo diidmo ama la dhahayo waxaas kuma qasbani ama waxaas waajib iguma aha we don't have to pay for the food we don't have to pay for the food kuma qasbanin
in aanu cuntada bixinno. Food waa cunto. Pay waa bixin. We waa annaga. We don't have to pay for the food. Kuma qasbanin in aanu cuntada bixinno. We don't have to pay for the food. He doesn't have to work on weekends. He waa isaga. Doesn't have to kuma qasbana work inuu shaqeeyo on weekends maalmaha toddobaadka uu ku dhammaado. Wadamada inta badan waxa ay u yihiin maalmaha weekendiga waxaa loo yaqaanaa waa sabtida Saturday iyo axadda Sunday. Sabtida iyo axadda ayaa waxaa loo yaqaanaa weekends, toddobaadka. He doesn't have to work on weekends. Kuma uu qasbana in uu shaqeeyo sabtida iyo axadda. He doesn't have to work on weekends. Kuma uu qasbana in uu shaqeeyo sabtida iyo axadda ama toddobaadka. You don't have to take your shoes off. Qasab ma aha in aad kabaha iska bixiso. You don't kuma qasbanid. You don't have to kuma qasbanid. Take your shoes kabahaada inaad iska bixiso. You don't have to take your shoes off. Kuma qasbanid in aad kabahaada iska bixiso. You don't have to take your shoes off. Kuma qasbanid inaad kabaha iska bixiso. Cashirkii maanta intaas haynoo joogo. Inta aanu mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.